asxaabteena ku soo dhawaada barnaamij cusub oo asbuucle ah. barnaamijkaasi aan ku soo qaadan doono aktarada caalamka kuwa dalkeena iyo waliba fanaaniinta bahda fanka dhamaan inta ay ka kooban yihiin taariikh nololeedkooda iyo waliba faaleyn aan ka faaleyn doono aktarada caalamka si aan wax uga barana nin walba ama gabar walba aktarka ay taageerto si ay wax uga barato. barnaamijkeena maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa aktar caan ah kaas oo dalkeena aad looga xiiseeyo iyo waliba dalka Turkiga. aktarkaasi oo lagu magacaabo Kıvanç Tatlıtuğ. Kıvanç Tatlıtuğ waxa uu ku dhashay dalka Turkiga sanadku markuu ahaa 1983 Oktoobar 27. Kıvanç hooyadiis waxa ay ku dhalatay dalka Turkiga magaalada lagu magacaabo Edirne. Aabihiisna wuxuu ku dhashay dalka Turkiga magaalada lagu magacaabo Adana. qoyskiisa waxa ay ka soo jeedaan Yugoslavia. awoogiis aabihiis dhalo waa Albaaniyaan halka ayaydiis hooyadiis dhashana ay tahay Bosniyaan. Kıvanç xirfadiisii ugu horeysay waxa ay ahayd kubadda cagta wuxuuna jeclaa inuu noqdo ciyaaryahan caalami ah oo magac ku leh kubadda cagta. laakiin ma aysan u suurtagelin riyadiisii iyo hamiga uu ka lahay kubadda cagta sababtoo ah Kıvanç markuu uu soo weynaaday waxa xanuunsatay hooyadiis waxaana ku dhacay xanuun xagga wadnaha ah. isla markaasna Kıvanç uu ka tagay kubadda cagta oo meeshaas ayuu ku joojiyay hamigiisii kubadda cagta wuxuuna noqday model oo wuxuu bilaabay inuu sameeyo xayeysiinta dharka si uu hooyadiis u daaweeyo oo lacag u helo. Kıvanç meeshaas kuma joojinin waxa uu bilaabay inuu jilo filmo kuwaas uu ka sameyn jiray TV-yada dalka Turkiga musalsalada ka socdo ama laga soo daayo TV-yada dalka Turkiga wuxuuna noqday aktarkii ugu wanaagsanay wuxuuna ku guuleystay bilad best actor ah sanadku markuu ahaa 2009 sidoo kale wuxuu ku guuleystay bilado fara badan oo uu qaaday sanadkii markuu ahaa 2012 isla sanadkii 2012 wuxuu ku guuleystay TV Awards best actor golden sanadkii markuu ahaa 2012 sidoo kale wuxuu ku guuleystay best actor bilad sidoo kale wuxuu ku guuleystay best actor awards sanadkii markuu ahaa 2014 wuxuu kale ku guuleystay best actor awards sanadkii 2017 sidoo kale 2018 wuxuu ku guuleystay biladii aktarka ugu wanaagsanay dalkaas wuxuu noqday aktarka ugu wanaagsan 2019. taasina waxay ku cadeynaysaa qofka markuu uu dadaalo riyo walba uu leeyahay inuu gaarayo. wuxuu ahaa riyadiisii ugu horeysay inuu noqdo ciyaaryahan caalami ah oo caan ka ah dhanka kubadda cagta. haddii uu suurtagali weysana si uu waalidkiisu caawiyo ayuu wuxuu u galay inuu noqdo model kadibna wuxuu bilaabay inuu noqdo aktar caan ah. sidaas ayuu caan ku noqday kuna helay lacag fara badan magacna ku yeeshay riyadiisiina u rumeeyay wuxuuna gaaray heer mar walbana haddii aad hami leedahay oo aad higsatid ama aad gaari weysay ku rumoobi weysay wixii aad markaas ku haminaysay ma aha inaad niyad jabtid waa inaad niyad yeelatid oo aad baroobaysid waxyaalo kaleeto si aad u gaartid hamigaaga. taasina waxay ku cadeynaysaa qof walba oo dadaalo inuu gaaro guusha. ininkan waxaan idin rajeey doonaa qof walba inuu dadaalo si uu guusha u gaaro. aad iyo mahadsan.